ما أقان مركز ما أقان مسكح جالسة هاي لكن أنا مركز أمير كقضية أنا سوق هاي تدريس الساسة وأنا حمون صدام وأنا دعاء وأنا دعاء واسوحة مركز حناقنا أسرع وأبيها ويجور قفنا لنا مقام كرب ونكون لص على فيسك حرالين تقبل كمدو وحسوق بنيا هذا لبضع هذا السنة هكوادي بدنا قدومي قرص ريال وهذا محمود ديريه هذا كواد ويكون هذا سنتهاي هذا سنة هذا ودل كسأة برير كتلقل أرحم دراء وأي كل شيء مرحومة صابرين سيلان عبد اللواس وأهيد قبر داير أغون وحين كل شيء حافظ إسراع يميسك بيه وحنا فلك لمشهد أهيد دعي تاريخ مركي أهيد لبيه tobankii bishii 11 2025 sida ku cad warqadda cadaynta dhimashada ee sumadeedu tahay MRH 679 kuna taariikhaysan 13 bishii 11 2025 waxaana marxuumad saabiriin oo awoowo u ahaa eedeysanaha labaadi uu keenay guriga ay joogto ay hooyada ka tahay eedeysanada koowaad oo ahodan oo ahayd xaaskiisa eedeysanaha labaad waxaana la keenay taariikhdu markay ahayd bishii 9aad bilowgeedii sanadkan 2025 waxayna eedeysanadu ku bilowday tacadiga marxuumadda ay u dhimatay isla bilowgii bishan haddaba mudana gudoomiye garsoorayaan tacadiga marxuumad saabiriin ay martay ma ahayn hal fal oo hal dhacdo oo hal xilli dhacay oo dhimasho ama ahayn wuxuu ahaa fal arxan darro ka soo bilowday markii la keenay marxuumadda guriga oo ahayd bishii 9aad kuna dhamaaday bishii 11keedii ilaa 12keedii 2025 oo uu dhacay falka ugu dambeeyay oo dhimashada ahaa tacadigaasi mudana gudoomiye garsoorayaal wuxuu maray 3 marxaladood marxalad kastana waxaanu la wadaagaynaa maxkamadda faahfaahinteeda iyo cadeymaheeda marxaladda koowaad mudana gudoomiye garsoorayaal waxay bilowday eedeysanadu tacadiga koowaad oo iskugu jiray hanjabaad cabsi gelin markii qodobkaas aan dul joogin inta meel kale loo gudbin wuxuu tilmaamayaa qofka sida xun ula macaamila caruurta guriga ku nool iyo xaaskiisa ama xubnaha qoyskaba sida taasi kale oo dhaaxitaa haddana qofkaasu waa in sida xun ee ula macaamilahayo ay tahay mid uu si toos ah asagu u fulinayo ficilkiisa waa xeerka waxaan hayo waa isla qodobkaas waaga maxaa laga raxay xafiiska xeer laalinta waxaa laga reebay mudane gudoomiye farqada koobaad ee qodobka 232 in ay qofka ku eedeynayaan haddii ay qodobkan soo qaadanayaan oo yani macaamil xumo ay qofka ay ku maartay ku eedeynayaan farqada koobaad in ay qofka ku eedeeyaan bay xaq u leeyahay badayba taaltooda loo raacan weeyay markii farqadaas sugnaato oo cadeyn loo helo maxkamadda horteedana cadeyn farqadaas waafaqsan la helo oo farqadaas sugnaato ba waxa la leeyahay farqadaas wixii ka imaaday macaamil xumada ka imaatay ma dhimashay ahayd mise dhaawac bay ahayd oo farqada labaad goorma farqada labaad lagu eedeeyay muwakkilkayga ayadoon la cadaynin farqadii koobaad mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan rabnaa sharciga inaan dabaqno bidillah karimta karankayaga waxaa halkan lagu soo bandhigay oo xafiiska xeer ilaalintu uu soo bandhigay muuqaalo muujinaya gabadha oo xirxiran saabiriin oo jirdil uu ka muuqdo dhaawacyo dhabarka timihii laga xiiray bac ay ku xiran tahay oo dhuunta kaga xiran tahay waxa la yiraahdo ka waran arrintaas doctor anigu markaan xanaaqo waan xanuunsadaa markaan xanaaqo waxyaabaha badan hadda shaabuug waa la dhici jiray laakiin wax kale oo jirdil ah u geystay shaabuuggaas waa la dhici jiray dhabarka waxa kaga yaala waa shaabuugga la dhici jiray iyo gacmaha laakiin wax kale oo aan u geystay ma jiraan
dhaawacyada adiga u geystay miya shaabuuku weeyaha mar walba way madax adkeed waxaan isugu imaan jirnay waa nadaafadeeda timaha waxa uga xiray waxay ahayd nadaafad darro nadaafadeeda wuu ka warqabaa awgeed wuu la socday nadaafadeedaas iyo tababarkeedaas waxaan ahayna isuguma imaan jirin shaqo gurina iyo qaban jirin oo shaqaale ii joogay shaqadaana ayadaan ku tababarayay oo waxaan islahaa aad kaga faa'iidaysato wax cilmigeeda u dhimaya ama wax nafta kaga qaada ahna anigu ku talagalkayga ma ahan gabadhan ayadoo nabad qabtay anoo nabad qabamaan seexatay anna hargaha ayaa ku xiray lugaha iyo gacmaha uga xirnaa hargahaas ma garan karo hargahaas ma aqaan markaas ma aqaan maskaxdeeda say ahayd laakiin anigu marka amiirka qabay oo isugu kay dambeysay saas ahayd waana xanuunsadaa waana dhacaa maxaa kugu dhaca waan dhacaa waa suuxaa markaa xanaaqana isagaba waa ogyahay wuu iga warqabaa qofna lagama qaban karo wuuna la socdaa